ma rumaysan tahay in haragga bini'aadanka laga sameeyo buug jaldigiisa? maktabadda qaranka Kazakhstan waxaa yaala buug lagu qoray gacanta oo ka samaysan harag bini'aadan. waxaa qoray Petros oo ahaa nin nootaayo haysta oo dhashay dalka Talyaaniga, waxaanu ku qoray afka Laatiiniga. maktabadda dalka Kazakhstan waxaa kaloo yaala in ka badan 10,000 oo kala duwan oo ka samaysan haragyo kala duwan oo buugaaga. isku day ay samaysay jaamacad ku taala dalka Faransiiska ayaa lagu akhriyay buuggan 10 buug ugu horeeya, waxaana ku qornaa waxyaabo la xiriira asaasiyaadka nolosha sida xisaabaadka dakhliga, raasamaalka iyo waxyaabahaas. balse buuggan ayaa wax loo qoonsaday waxaa ku qoran in ay weli qarsoon yihiin maadaama la akhriyay 10 buug ee ugu horeeya oo ka noqonaysa 3%. weli alaanka lama garanayo sababta buuggan loo qoray iyo cilmiga ku duugan iyo waxa uu xambaarsan yahay. intaas ayuu muuqaalkeeni inoogu eegyahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.